nafaqada carruurta markii laga hadlaayo waxaa muhiima 3 arrimood oo ayaa muhiim ah horta in la ogaado. Midda koobaad oo ah bulshada iyo hooyooyinka iyo dadka ilmaha tababarahaya ee korinaya waxaa muhiima inay ogaadaan wax la yidhahdo food nutrition. Cuntooyinka waxay kala yihiin inay ogaadaan noocyada ay kala yihiin, sida loo isticmaalayo wixii la midka. Midda labaad oo ah feeding education. Ilmaha cunta siintoodu waa shaqo weliba aan ka yarayn cuntada kolka hore sida loogu diyaarinayo cunta siinta. Waa midda saddexaad waa in waalidiintu ay ogaadaan oo muhiim ayadan ah ilmaha stageska ay kala yihiin noloshooda ama meelaha noloshooda ay kala joogaan. Marka uu caloosha hooyadiis galo ilaa uu ka weynaanayo qof weyn ka noqon hayo, waxaa muhiima stageska uu marahayo iyo cuntooyinku u kala baahan yahay iyo sida ay kala yihiin, sababta oo waqtiyada qaarkood way kala duwan yihiin. Marka guud ahaan 3 arrimood waa muhiim waalidku ama qofka ilmaha tababaraya ama korinaya inuu ogaado, muhiim waaye. Dr. Cabdiqaadir, marka bal waxaad inoo sheegtaa noocyada cuntooyinka ay u baahan yihiin carruurta ama in ay tahay in la siiyo iyo weliba sanadahooda. Okay. Noocyada carruurta noocyada cuntada ee loo baahan yahay carruurta in la siiyo guud ahaan 6 nooc ayaa ugu muhiimsan. Midda koobaad oo ah caanaha iyo wax caanaha ee la saaxiibka ah way ka mid yihiin. Naaski baa ku jira, caanaha caadiga ku jira markay weynaadaan noocay noqdaan, ama caano ha noqdaan, ama caano geel ha noqdaan, ama caano xoolo kale ha noqdaan. Caano wixii yogurtka ku jira, cheeseka ku jira, groupkaas oo dhan caana la dhahaa. Waxaa kaloo ayadana ka mid ah waxa loo yaqaano starchka iyo cerealska. Cerealska iyo starchka waa cuntooyinka ugu fara badan oo cunno ilmaha, sida Weetabixka iyo cuntada sida bariiska, baastada, maxaa la yidhaahdaa booshada ama ugaalida wax loo yaqaano. waxaa kaloo ka mid ah qamadiga iyo sarreenka wixii la midka, waxaasoo dhan starch ama cereals baa loo dhahaa. Midda saddexaad waa nooca loo yaqaano hilibka wixii ka samaysan. Hilibka kalluun buu noqon karaa, digaag buu noqon karaa, hilib xoolaad oo caadi buu noqon karaa. Midda saddexaad oo midda afraad waxaa waaye in digirtii wixii la midka ama digirtii caadiga iyo misirta, noocyadaasoo dhan aad bay muhiim u yihiin, ayagana protein ayay keenaan. Marka digirtan iyo hilibkan waa protein. Noocii hore aan sheegnay oo cuntada badana aan cunno oo sida galleyda iyo bariiskii iyo burkii wixii ka samaysan oo dhan, noocaas isagana energy giving food baa la dhahaa, xoog buu siinaya ilmaha. Caanahana ayagana waxyaalo badan oo sida calciumka ah iyo waxay u keenayaan ay siinayaan iyo protein ayadana. Midda shanaad waa waxa loo yaqaano fruitska, qudaarta fruitska iyo vegetables-ka, moos ha noqdo, cambe ha noqdo, babay ha noqdo, avocado ha noqoto, wixii la mid sida sukuma wikiga, kabashka, spinachka iyo wixii la midka, cagaarada noocaas oo dhan aaday muhiim u yihiin. waxaa soo raaca ayadana saliidda weliba saliidooyinka caafimaadka leh ayaa iyagana muhiim ah. marmar waxaa lagu daraa biyaha iyo wixii la midka, inkastoo biyuhu badana ay caanaha ku jiraan, ayagana ayaa muhiim ah. marka guud ahaan 6 nooc ama marka qaarkood ilaa 7 nooc oo cuntada ka mid ah ayaa ilmaha loogu talagalay. cuntadaasi mid walba waxay bixinaysaa nooc ka mid ah ay siinaysaa. qaarkood baa minerals iyo vitamins kale, qaarkood baa proteins kale, qaarkood baa energy giving food kale. waa nooca keenaya xooga, noocna wuxuu keenayaa proteinki iyo jirki buu galayaa, noocna wuxuu keenayaa macdanti jirka ay u baahnayd iyo fitamiinaadka ay u baahnayeen. marka noocyada ugu yaraan waxaa la rabaa 4 nooc maalintii inuu cunugu qaato. ugu yaraan 4 nooc waa inuu qaataa cunugu. 4 nooc oo 6daas ka mid ah. marka ka waran Dr. Cabdiqaadir, marka cunuga uu koraayo ayagana cuntooyinka loo baahan yahay marka carruurta in la siiyo. marka guud ahaan carruurta kobcidooda waxay ka bilaabanaysaa marka hooyada ur ku jirto. marka hooyada ur ku jirtana waxay qaadanayso waa cuntada ayaday qaadanaysaa la rabaa cunto balance diet inay ahaato, cunto isku dheelitiran oo noocyada aan sheegnay oo carbohydrate-ka, proteinka, vitamin iyo mineralka iyo oilska intaasoo dhanba ka kooban waa inay qaadataa oo ku filan ayada. cunugii markuu dhasho ilaa 6 bilood uu ka gaarayo, waxa ugu muhiimsan ee aad cunugaada siin karto biyo ma ahan,
caano kaloo caano boora ma ahan, caano xooloo kale ma ahan, waa naaska hooyada. naaska hooyada aad buu muhiim u yahay, ilaahayna waxyaalo ugu talagalay, sababo ugu talagalaa jirta. waxaa ugu muhiimsanoo ilmaha in waxa dambarka la dhahno nuujiyo. dambarka ama waxaa waye caanaha colostramka ee afka ingiliishka loogu yaqaano, caanaha ugu hore oo hooyada ay soo saarayso. caanaha waxyaalo fara badan oo ay daawooyin ay ka mid yihiin, ilmahana uu ku kobcayo, caafimaadkiisa oo dhanna muhiim u ah ayaa ku jira. ilaa 6 bilood waxaa la rabaa marka naaskaas in la siiyo cunuga uu shaqo oon wax kale aan la siinin, wuuna ku filan yahay. saacadda ugu hore waa in lagu bilaabo ilaa 6 biloodna la gaarsiiyo. 6 bilood markuu cunugu gaaro waxaa loo bilaabahayaa cunto complementary feed. sabab baana jirta. 6 bilood meesha ku gaaro cunugu kuma filaanhaya naaska keliya, waxyaalo fara badan oo u baahan yahay. marka cuntada lagu bilaabahaya tartiib tartiib, cuntadii horaan aan sheegay oo 6 ka koobneed la siinhayaa, laakiin tartiib tartiibaa loogu bilaabay. haddii cunugu 6 bilood markuu joogaa 2 jeer ilaa 3 jeer maalintii ayaa cuntada la siinhayaa. naaskana waa la nuujinhayaa oo waa loo wadahaya, lagama istaajinayo. 7 bilood ilaa 8 bilood markuu gaaro 3 jeer ayaa la siinhayaa cunuga ee cuntada la siinhayaa. 8 bilood ilaa 11 bilood ilaa 4 jeer ba la siin karaa. meeshuu cunugu sanad ku gaarana cuntada caadiga dareerka uu cuno ayuu qaadan karaa. marka ayadana waa loo sii kobcinhayaa 3 jeer oo cunto waaweyna ilaa 2 jeer ilaa 3 jeer oo cunto fudfududa oo u dhaxaysa ayaa ayadana waqtigaa la siin karaa. waxaa kaloo muhiim ayadana inta la siinhayo, qiyaasta la siinhayo waa muhiim. qiyaasta canuga la siinhayo markuu 6 bilood uu jiro, sida loo siinayo 2 qaado ilaa 3 qaado wax dhan ayaa la rabaa inuu qaato. meeshuu 8 bilood meelaha ku gaaro waxaa la rabaa inuu qaato ilaa koob nuskii oo kale. meeshuu 10 bilood ilaa 11 bilood ku gaaro ilaa 3 meelood koobka intuu dhan yahay. sanad meesha ku gaarana koob cunto dhan ayaa la rabaa inuu qaato. ayaa iyadana ay muhiim tahay inuu qaato. Dr. Cabdiqaadir, bal marka iyadana wax yar waxaa inoo sharaxdaa sida ay tahay hooyooyinka inay caruurtooda cuntada ay u siiyaan. cunto siinta caruurta arrin waxaa waaye badanaa dadku aynan ku baraarugsanayn, laakiin haddii aynan ka muhiimsanayn way la siman tahay cuntada kolka horeba la siinayo. cuntada markii preparationka ama diyaarinta horta la gelayo ilmaha, cuntada loo diyaarinayo waxaa muhiim in laga fiiriyo waxa la yiraahdo consistency-ga oo ah cuntada kolka hore canuga markuu 6 bilood gaaro waxaa loo bilaabaya cunto khafiif oo biyo oo sida kolka hore uji ahaan ilaa markuu sii weynaanayo. mar walba waa la sii adkaynaya cuntada inay sii adkaato, waa muhiim. markii cuntada la diyaarinayo loo soo diyaarinayo kolka horeba waa in nabadgelyada cuntada la fiiriyo oo cuntadaas ayna noqonin cunto oo contaminated oo wasakh leh oo ama khatar ku ah cunuga caafimaadkiisa. waxaa kaloo muhiima oo ayadana aan sheegnay cuntada frequency-ga la siinayo, cuntada sida inta jeer la siinayo. ilmaha markuu 3 sano gaaro ilmaha markuu sanad gaaro waxaa la rabaa 3 cunto oo waaweyn ilaa 2 cunto ama 3 cunto oo fudfudud maalintii in la siiyo. sida qaabka loo siinayo marka waxaa muhiim ah in loo dulqaato kolka horeba. ilmaha qaarkood baa picky eaters nooca la dhaha waayo oo wax yar intay qaadaan ay iska dhigahayaan. kolba waa in wax lagu fiiriyaa, cuntada loo bedelaa, tartiib loo dulqaatay u baahan tahay. cunugii in cunto lagu qasbana ma ahan, oo haddii aad ku qasabto marka dambe wuu nacahayaa. remember qofkan cunuga wuu yaryahay ma ogi, waa bini aadam wax walbana wuu fahmaya. in aad ku qasabto ilmihii aad sida hooyooyinka qaarkood saxanka inay leeleefaan oo ay eber ka dhigaan lama ogolo. cunugu markuu dhargo waa inaad aadan ku qasbin. markuu ka baxo inuu waxaa rabaa cunugu markuu cuntada cunayo aad ku encourage garayso ama aad ku booriso inuu asaga cunugu uu cuno. markuu yaryahay tartiib waa ku caawin kartaa, laakiin ilaa xad waa inuu gacanta la dhexgelin karaa. cuntada qaar uu ku daadina dhulka, qaar uu tuuri, qaar uu asaga dharkiisa uu ku wasakhaynaya. waxaasoo dhan waxay muhiim u tahay development ama maskaxdiisa kobcidda cunuga. waxay muhiim u tahay cuntada inuu barto, waxaa muhiim u tahay inuu wixii oo dhan fahmo. waxaa kaloo muhiim hooyooyinka inay ogaadaan cuntada markaad u bilaabayso canuga ilaa waxaa laga yaabaa 10 jeer ama 10 maalin oo cuntada aad siinayso nooca aad ku bilowday inuu kolka hore mar walba u dhadhamiyo uu kadibna uu ka tago. ilaa 10 jeer ay ku qaadanaysaa inuu cuntada ayada la qabsado. that's why cunto cusub مثلا cuntooyinkan aan Soomaalida ayna aqaanin oo kale haddii aad u bilaabi rabto canugaada maalinta ugu hore inuu diidaa laga yaabaa.
maalinta labaad maalinta uu tobnaad uu gaaro inuu fahmaa dhici karta oo cuntada uu cuno marka in loo dulqaato tartiibta loo fiiriyo waaye oo waa muhim in lagu qasbo canugina maahan in ma aragtay aad loogu dulqaato oo arrintaasi si dhimir la cunug loogu fiiriyo waaye mahadsanid dr cabdiqaadir ugu dambeyntii bal wax badan baad kasoo sheekaysay ilaa hooyada marka ay cunuga uurka ay ku sido ilaa marka uu kasoo gaaraya ilaa iyo 5 sano 3 sano 1 sano intay ahaataba marka muhiimad caynkeeda ayay u leedahay processkaas haddii hooyada si saxan ay u marto intaad adiga ka sheekaysaba ay hooyadii ay samayso muhiimadda ay u leedahay iyo haddii hooyada aysan samaynin cunuga mataqaanaa dhibka uga imaan karo canuga horta markuu uurka hooyadiis ku jiro kobcitaankiisa noocuu noqdaba jirkiisii unugyadiisoo dhan laba nooca kontaroosha mid waa mid hormonal la dhaho oo dhacaamo uu ilaahay ugu talagalay oo soo saaray ku koraan midda labaadna waa nutritionka ama nafaqada marka haddii mid la waayo midka kale ma shaqaynayo yacni hoos buu u dhacaya ilmuhu markay dhashaan ilaa ay xad ka gaarahayaan intaasoo sano growthkooda ama kobcitaankoodu wuxuu dependent ku yahay ama ku tiirsan yahay waxaa waaye nutritionka ama nafaqada marka taasi nafaqadu waa waxyaalaha ugu muhiimsan caafimaadka ayaa qofka bini'aadamka waxyaalaha ugu muhiimsan noloshiisa ka mid a caafimaadkana waxyaalaha kontroole ugu muhiimsan nafaqada ka mid a weliba khaasatan caruurta way kasii xag jirtaa marka the right type ama nooca ugu saxsan oo nafaqadiisa inaad kontroosho muhim ayay aad u tahay hooyooyinka soomaalida marka xoogga waxay saaraan canuga inuu kobco waxaan ku kari la'nahay canuga dantiisa waxay ku jirtaa naaska in la nuujiyo naaska nuujiyo ilaa 6 bilood naaska nuuji naas nuujinta baaritaamada iyo baxdiga caalamka la sameeyo dhan waxay tusaysaa waxa ugu muhiimsano aad siin karto ilmahada inay tahay sababtoo naas nuujinta مثلا ahaan xanuunkan diarrhea ama shubanka la yiraahdo ilaa 3 meelood meel ay hoos u dhigi kartaa pneumoniada xanuunka respiratory systemka ama sanbabada gala iyo sida pneumoniada la midka ilaa waxaa laga yaabaa nus ka mida inay hoos u dhigto waxaa laga yaabaa xanuunada markuu weynaado canuga sida diabetiska ama sokorta iyo macaanka hypertensionka sida dhiigkarka iyo wixii la midka xanuunada lifestyleka loo yaqaano riskigooda ama khatarta qofku markuu weynaado haddii isagoo yar naas la siiyo hoos ayay u dhacaysaa intelligencekooda iyo waxbarashadooda iyo caqligooda muhim ayay u tahay laakiin hooyooyinka soomaaliyeed xoogga waxay saaraan caano waxaan rabaa cunugu inuu hal mar kiiladiisa ay ku korodho kiiladana muhiimadda ma ahan keliya muhiimadda nutritionka kiilada iyo xayrta oo gasha keliya ma ahan waxaa waaye wixii isku dhelitiran ayaa loo baahan yahay